أجينا أرضها هنا حمر شوقني أيام مالين وشكان بدن كوع عليه نم بروفيسور هندي يبا وحدقي ساعدا يرى الليلك كيلوات اور كلا يدهضو سيدا وشقيسو شرحي رجع كم حلوة تبرر يا دير يا ما إنجنير ما معلمين وحن دكتور نقدان وحمرك هالشرحية سيدا الله حد كراه وحو شرحي شن طريقه oo ay suurtagal tahay in saacada loo khiyaameyn karo dadkan maxaa loogu dhigayaa inay ilaaliyaan waan saacadahan iyo waxa kan dadku xadin ardadii loo dhigayay subaxii dambe markay suuqa tageen in badan oo kamid nin waliba intii reere u garanayay buu maqluubka ugu soo xidhay marka muxuu taray ardayga cilmiga la barayay وحترى إنه نقدتوك حريفة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد. أيها الأحبة كلمات كوابن بندرون دونا هدي بوغ يرادو إن وحكت المامي دونا إن شاء الله تعالى أقونتا iyo waxa ay qiimaha ku leedahay ama marka ay hanuun wadato cilmiga ama aqoontu asliyan qadiisa la fahmo inkastoo laga yaabo inuu jiro erayo kala gedisan oo lagu sharxo waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay jahliga wixii ka soo horjeeday marka waa ogaanshiyo وقفك اسكت ضيّن وقعدوا حقائق ذا الشريطان ككجرة هنون كنا ضد الضلالة أو يحب هذه النمذجة كسهر شيء اصطلاحها ما وحيابا لغو شرحنا وحكم مدين لا يراهدو شيء مطلوب في أدوني سوى وحيكو قارسيني أيها الأحبة أقوم تمان تدوني ذا تهلا ولا بقى يبوط قيبي ووحي السمدك السودقي وشاقي حقيقة ربي عليمة وخبيرة وحكيمة ووحول بأوغي وسودكي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إلهي وحلي سبحانه وتعالى وحسودك يا قرآن كان إله أقعري يرد بصيرت كجرته ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم حنوكن يا مولانا مبايل هيلي سبحانه وتعالى كتاب فصلناه على علم قيبت لبادة أقوانته وإلهي مخلوقات كيسو لدراسيه marka waxaynu aqoon hayno dhami imma kalaamullah wa imma af'aalullah inay tahay ilaahay hadalkiisii ama waxyigii xaga samada ka yimi ama inay tahay dhugasho la dhugtay khalqiga ilaahay abuuray iyo siduu u shaqeeyo ha ahaato cirkan iyo dhulkan iyo aadamaha iyo waxa ku dhex nool dhugasho la dhuganayo ama fiirsasho loo fiirsanayo la isku dayayo qawaacidda cilmiga ilaahay ku dhisay in la ogaado cilmigu markaa masdar kale male waa labada shay imma inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiguu soo dejiyey ama inuu yahay daraso ama barasho la isku dayayo in la barto khalqiga ilaahay abuuray iyo sida uu dhaqmo ama uu shaqeeyo insaanku khalqiga wuxuu ku ogyahay waa wax tirsan marka horeba mugga qofka bini'aadamkii wuu yaryahay afar suuradood oo qur-aanka ka mid ah ilaahay wuxuu ku leeyahay wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun
سورة البقرة سورة آل عمران هي سورة النور لو ما يلودو بقرة هي لبدا سورة دودو كالي وأفر آيادود قرآن كمدا أي إلهي إلهي والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي سبحانه وتعالى وحبو أوجيهي إذن كنا وحبا ما أوجدين وحي إلهي نوت المامية وما أوتيت من العلم إلا قليلا أقونت الله إذن كمسينين وحير موياني وحلالي وحب بني آدم كوغي يوردن مرك الله يسكو دره مقعية بدن له أقومها أما human sciences النقضان أما natural sciences النقضان waxaad doonto ku sheeg magaca doonto u bixi insaanku intuu ogiyay waa in aad u yar cidda ilaahay rumaysay ee dhab u rumaysani waxay qiranayaan inaan iyagu waxba ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtu markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi innii aclamu maa la taclamuun markay ra'yiga soo jeediyeen ilaahay wuxuu ku yidhi innii aclamu maa la taclamuun waxaan ogahay waxaydan idinku ogeyn iyaguna waxay ugu jawaabeen qaaluu subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim nebi muuse iyo khidir markii ay kulmeen ninkii ilaahay cilmiga baray ee culamo badani leeyihiin nebi buu isna ahaa wuxuu arkay shimbir biyo minqaarka geliya afka geliyay oo ka soo saaray markaasuu wuxuu ku yidhi xadiidka bukhaari wallahi maa cilmii wa cilmuk fii janbi cilmi illaahi ilaa kamaa akhada hada ataa'iru biminqaarihi min albaxr nebi muusow cilmigayga iyo kaaga marka laysku wada daro uma dhigmaan ama kama aha ilaahay cilmigiisa haddii loo eego shimbirkaa badda afka geliyay intuu ka soo qaaday laakiin dhibta taagan baa waxay tahay insaanka dunida jooga isagoo aqoontiisu intaa tahay buu kibir ka qaadaa isagoo jahligiisu uu ka badan yahay wax walba ayuu kibir ka qaadaa aqoontu hadday weydo markaa hidaaya xoogaaga bini aadamku ogaaday hadday hidaayo iyo hanuun weydo waa baadinimay horseedaa wuxuu qofka bini aadamkii ogaaday haddii uu hanuun waayo waxa uu horseedaa waa baadinimo sidaa ogeed bay culammadu waxay dhahdaan cilmigu waa sabab min asbaabi alhidaaya laakiin muujibun lilhidaaya maaha bay dhahdaan waa sabab ka mida sababaha lagu hanuuno hadduu qofku kibirka iyo waxa kale naftiisa ka ilaaliyo laakiin ma hadduu qofku wax ogaado inuu hanuunaya kama dhalato waxaa iskaga mid ah cilmi diineed iyo cilmi adduunyaba labada kaad wax ka ogaataba keligooda hanuun maaha haddaan ilaahay ku waafajin subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed bay culammadu waxay dhahdaan cilmigu haddaanu hanuun wadanin waa dalaalun bilaa xuduud bay dhahdaan waa baadinimo aan xad lahayn cilmigii waayey hanuunku maanta dunida waxaa laga yaabaa jaamacad baa joogtaan in akademinimada lagu faano iyo shahaadaadka la qaato iyo waxa la midka ah laakiin kan baa dunida jooga shahaadaad sita cilmi daqiiqa iyo ikhtisaasaad aad u cajo badan leh wax badanna ogaaday oo ka mida khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin haddana dhagaxu sujuuda ama dibi caabuda waa brofesaro kuwan kaadida dibga ku maydhanaya waa brofesor laga yaabo fiildkiisa in ninka looga dambeeyaba uu yahay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy waman yudlil illaahu famaa lahu min haad cidda alla lumiye ambataa hanuun ma leh 150 shahaado sido haddaad waxa u weyn garan weydo allah subxaanahu wa tacaala
waxaad garatoo dhamme waa bacdu makhluuqaatihi oo aanad weliba wax badan ka ogeyn agtaada aqoonta taalloo dhammi waa in yaroo makhluuqaadka ka mid ah ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إلهي وحولي يا بل كورما من اتخذ إلهه هواه قفك معبود كيسا ما وحو عابد يكهدغي هودي نفتيس وحي تعشوقات وأضله الله على علم إلهي لمي سبحانه وتعالى على علم وحال بيدهدان مفسرين قاركودنا فاعل كي كحاليا قاركودنا مفعول كي كحاليا أن مفعول كسعنه إلهي لمي سوغو كاسي حال كونه على علم سوغو قون مادي الدنيا له أما الدينات بله هدنا أن بضي اللمي وقارب إلهي كنت المام يجو إلهي قرنا ينيدين عمرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إلهي سيدا أوجد أقونتو هدي إلهي كتسي ويدو قيمة ماله waxaad noqonaysaa qof ama naftiisa caabuda ama hayrkii caabuda hayrka ama dibi ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama sanam ha noqdo ama ciise ha noqdo ama cidduu doonaya ha noqdo maantana waxaad arkaysaa dad badan oo magac iyo maamuus ku leh basharka dhexdiisa oo waxoogaa aqoonta bini aadamka ka leh oo noocaasi ku sugan inta aan kuwa ahaynina waa malaaxida hawadooda iyana caabudaan sida ogeed ayuha alaxiba haddii aqoontu ay noqon weydo tii ilaahay tilmaamay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ugu horreeye ku soo degay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam adduunka mashkilaadkii ka jiray wuu tiro badnaa dulmaa jiray cadaalad daraa jirtay kan baa jiray waxan baa jiray carabi meeshay degantayna fawda ka jirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiguu nebi maxamed u soo dhiibay wuxuu ku bilaabay qadiyat alcilm iyo ilaahay qalinka dadka wax ku baray laakiin waxaa la yidhi iqra bismi rabbik iqra qura lama odhanin akhri lama odhanine waxaad akhridaa baa la yidhi adigoo muftatixan bismi rabbik aw mustaciinan bihi aw mubtadi'an bih adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa ku bilaabanaya akhri baa la yidhi aqoontu hadday magaca ilaahay ku bilaabanto waa aqoon waxtarah mid adduunya mid aakhira kay doonaysa ahaato hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa ku bilaabanto waa waxtar haddayse garab marto adduunkana waa kadeeduun uu qofku sii faroro wuxuun baadhayo natiijana male wuxuu baadhayaaye akhiiran naar buu ku dambaynaya sidaa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kuwa aqoon sida laakiin ilaahay uu ku sheegay inay dameerayiin ilaahay wuxuu leeyay mathalu aladiina xumiluu atawraat ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا kuwii tusaalahooda wuxuu yahay towraad loo dhiibay ee siday ee lagu kalifay inay qaataan sidii ilaahay wuxuu ku tilmaamay dameer buugaag sida marka kuwani aqoon yarii ma jirin ee towraad baabay sideen laakiin way garab mareen sida ogeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aqoontaas inaanay qiimo agtiisa ka lahayn ولذلك بروفيسور aan garanayn inuu ilaahay u weysaysto ama wejiga dhulka dhigo qiimo ma samaynayo aqoontu waxay qiimo samaynaysaa markay ilaahay ku barto subxaanahu wa tacaala waxa kaloo ilaahay qur-aanka kaga warramaya nin diin garanayay laakiin hawadii naftiisa ka doortay
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. dadka waxaad uga warantaabaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kii aanu siinay aayaadkayaga baa ilaahay yidhi. aqoon buu siday, ilaahay aayaadkiisii buu xambaarsanaa, laakiin uu dhinac maray. akhlada ila alardi watabaca hawaah baa ilaahay ku tilmaamay inuu naftiisa raacay, hawadiisa inuu raacay. dameer baa lagu tilmaamay. kan aayaadka ilaahay siday ee laakiin hanuuni waayeyna waxaa lagu tilmaamay inuu eeyey. eygaba waxaa la yidhaahdaa haddaad eridana wuu hararyoodaa. hararyada ma taqaaniin? xooluhu marka ay cadceedda ku dhacdo ee hadhka la geeyo carabkay soo saarana way hararyoodaan. eygu hadduunu kulayl arag ama la eriyana uu iska joogo carabka wuu laalaadinaya. haddii aad eridana carabka u laalaadinaya. isaga labada siyoodba way isugu mid. kan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ilaahay aayaadkiisii inta la siiyey baanay waxba ka bedelin. saa daraaddeed baa ilaahay tusahliisa wuxuu ka dhigay kamahali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath. waayo hawa nafs qur-aanku meelaha uu ku tilmaamo o dhan wuxuu ku tilmaamayaa dadka baadiyoobay. walaa tatabici ilhawa fayudilaka can sabiili illah waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نبينا وكيل عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن أيها الأحبة دول كاسيقو علم له أيدي نعمرين وها إلهي تلمام يا قرآن كمتك له أو حوغا هانتيه هلي أو اسبوفيه دبيتنا markii la faray war maad wax sadaqaysatay ama ilaahay maad ka cabsatay ama sidan maad yeeshid wuxuu yidhi qaala inamaa uutiitu calaa cilmin cindi. aqoon baan ku keenay xoolaha kan. ilaahayna wuxuu ku tilmaamay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard. isaga iyo guryuhu ku faanayaba dhulkaanu la goynayba alla tilmaamaya subxaana wa tacaala. waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramaya kuwo rusul uu soo diray oo waxoogaagii ay haysteen ee aqoontaha ku faanay oo rusushii garab. walamaa jaa'athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilm waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun. marka ay rusushu caddaymaha ula yimaadeen baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxay ku farxeen bimaa cindahum min alcilm. waxoogaagii ay garanayeen bay kibir ka qaadeen. nebiyadii may rumaynin. qaar baa ilaahay wuxuu leeyahay ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الأحبة نصوص تاس قرآن كودم وحي تلماميسا أقونت أمام الدينات هالنقطة وإذا ده كتاب حورة وتربى ذا باكرة أمام الدنيا هالنقطة. hadday ilaahay kuu dhoweyn weydo aad waaxidka garan weydo ama mabdi'iisa aad raaci weydo inay waxla-aantahy ama dalaalun bilaa xuduuday sheegayeen inay tahy. ilaahayna wuxuu qur-aan ku tilmaamayaa saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaq wain yarow kula aayatin laa yu'minuu biha wain yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila. ilahay wuxuu ku tilmaamaya kuwan intay aayaadka arkaan inaanay rumaynaynin, jidka quman intay arkaan inay ka weecanayaan. wain yarow sabiila alghayi yatakhiduuhu sabiila. jidka baatilka hadday arkaan inay raacayaan. sababtu waa maxay? dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canha gaafiliin baa ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala. cilmigu waa kii ku dhaxal siiya inaad ilaahay ka cabsato subxaana wa tacaala. sidaa awgeed buu alla leeyahy inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa'u. alle wuxuunbaa ka baqa. inama ayaa ilaahay ku isticmaalay. wuxuunbaa alle keliyoo ka baqa ilaahay kuwa culamada ee rabbigood gartay. culammadu waa kaa cilmiga dhab tahay waa inaad rabbigaa garato. haddaad rabbigaa garan weydo wixii ka soo hadha ead shahaadad sidatoo dhammi waa jahli baad ku sugan tahay.
waayo wixii ugu muudnaa in la gartaabaad garan weyday. hadday garasho quri wax tarayso ibliis bay anfici lahay. ibliis ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamayaa? rabbi faandirnii, rabbi rabbi buu leeyay. ibliis wuu garanayay inuu ilaahay rabbigii adduunkana inuu isagu maamulo, isaguu baryayey. haddana markii waxyigu soo degay la yidhi sidaa yeel, wuxuu isticmaalay mantiqa iyo caqliga oo wuxuu u baydhay iyadoo nusuustii waxyiga ilaahay taallu wuxuu u weecday inuu ra'yiga ka horraysiiyo. isaga waxay la tahy ana khayrun minhum buu ka bilaabay. anigaa isaga ka khayr badan. khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. ilaahay wax walba ogaayoo le sidaa yeel ayuu wuxuu leeyahy aniga waxay ila tahay inaan aadam anigu ka fiicnahay oo asalka iyagu kala gedisan yahay. sidaa awgeed inaanay habboonayn oo kale buu tilmaamaya. waa qiyaas nas laga horgeynayo. nebiguna calayhi salaatu wasalaam in badan buu ilaahay wuxuu ka baryayey, ilaah waxaan kaa magan galay min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhsha. aqoon aan wax tarin. aqoon kastoo ilaahay ku garab marisaa wax ma tarto. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan ama nusuus badan ay kaga sugantay salu llaha cilman naafican wa tacawaduu billahi min cilmin laa yanfac. war ilaahay weydiista cilmi idin anfaca oo ilaahay waxaa ka magan gashaan cilmi aan waxba taraynin. aakhirana kuwa naarta loogu horraysiiyo waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaari soo tilmaamayey 3 nin oo midi uu sheeganaya aqoon ilaahay uu leeyahay waxaan ku baray qur'aankii ee maxaad ku samaysay? habeen iyo maalinba waan akhrinayay buu yidhaahdaa. waxaa lagu yidhaahdaa buu nebigu tilmaamaya kadabt, been baad sheegtay waxaad rabtay in lagu yidhaahdo hebel waa qaari, waa nin qur'aan akhris fiican, waa nin qur'aanka sida loo akhriyo yaqaana. waqad qiil, intiina waa lagu yidhi. maadaama intaana lagu yidhi ilaahay agtiisa waxba kuma lihid weeyaan. wardigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay weydiisanaya allahuma inii asaluka cilman naafican wa camalan mutaqabala wa risqan tayiba. ilaah uu subax kastabaa la yidhaahdaa ducooyinkuu nebigu akhriyi jiray waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo ilaah waxaan ku weydiinayaa cilmi waxtara iyo camal la aqbalo iyo arsaaq tayiba xalaala. ayuha alaxiba, insaanku hadduu ilaahay si dhaba u garan waayo, aqoontu soo bartay waxay ku noqotaa bini aadamka wabaalun calayh. aqoontu markaa dhib bay noqotaa. tusaalayaal, 100kii sannadoodii ugu dambeeyey dunidu waxaa la tilmaamaya inay tahay 100kay ugu aqoon badnayd, waana 100kay ugu dadil badnayd. waa 100kay Hiroshima iyo Nagasaki ku dhufteen maxay? nuclear weapon ama hubka waxgumaada. waa 100kay mashkaakilka ugu badani uu dunida ka dhacay. dunida la leeyahay way horu martay. waa casriyadii nolosheeda ka mida wakhtiyaday ugu liidatay. wuxuu ahaa markay ugu aqoonta badnayd. hadday aqoontu wax tarayso aadanahay ilaalin kari lahayd markaasi. waa aqoonta keentay maalan yurub naaziyiinta iyo waxa kani markay wax wadeen. waa aqoonta keentay in waxa laaliya dadka handicapka ah, dadka naafada ah ama maskaxda wax uga dhiman yihiin ama jinsiyaadka qaar ka mid ah in laga dhigo jiirka dawooyinka lagu tijaabiyo. waa human being caadi oo nool oo waddanka degan in la yidhaahdo dadka wixii aan intaaj lahayna laga takhalluso oo baarlamaanku saxeexo. dadka wixii aan intaaj lahayn, wax soo saar lahayn,
dowladda iyo ummadda culays bay ku yihiin in laga takhalluso. waxaynu odhan karnaa adduunka aynu maanta joogno dowladaha ugu waaweyni waa kuwii waddanno dhan kula dagaalamaya afyuunka cab. faransiis iyo ingiriis iyo reer galbeedka kaloo daba jooga waxa ay jayna dagaal ugu qaadeen in lagu qasbo dowladda jayna inay afyuunka cabto. opium war waa maqashaan, waa 100 milyan bay gaadheen baa la yidhahaa dadkii drop outka ee China oo dowladda intay dagaal galeen hal meel buu berigii hore ka soo degi jiray deetana boqorkaa joojiyay dagaal baa lagu qaaday. waxaa la yidhi waa inaad ogolaataa 5 dekadood oo free port ah oo daroogada lagu iibiyo. waddankii yaraa maxaa la odhan jiray Hong Kong buu ahaa, jasiiradda yarada meesha ku taallay. jasiiradda muxuu ingiriisku u qabsaday inay noqoto tawsiica opiumka meesha laga qaybiyo oo dadka loo qaybiyo. xadaaradii reer galbeedka waata keentay afrikaan nool inta la soo qaado 1905 hadday dadka gaagaaban qaarabay soo qabteen dabeetana zuuga New York ku yaalla isaga iyo dhowr daayare cage lagu wada xidhay. markaasaa la yidhaha waa markuu bini aadamku soo tatawuraya aanu weli soo gaadhin qofkan dheer aanu imanin. kan iyo daayeerka ayaa isku mid ahaa, waa niman culamo ah, nimanka intay bini aadam soo qabsadeen meeshaasi ku xidhaya. dadka madmadoowa zuuga la dhigo ee la daawado Belgium ma waqti hore aad u malaynaysaa in la joojiyey 240 reer intay qaadeen ayay zoo xero ay u bixiyeen alxayawaanaat albashariya ayaa waa zoo la daawanayo 240 qoys oo buulkoodii iyo ilmahoodii iyo islaantii iyo carruurtii iyo wixii oo dhan wada socoto. 1958 baa la joojiyey. 1958 ba waqti hore ah. 1958 baa la joojiyey inay Yurub tigidha u soo goostaan oo ay daawadaan dadkan madmadoowe meesha ku xaraysan sidan waraabayaasha loo daawado iyo xoolaha iyo waxa kale loo daawado. markaynu eegno adduunka iyo maanta wixii ka dhacay tatawuraadka kani aqoontii badnayda la keenay waxay noqotoon in dadka badhna la gumaysto badhna la laayo badh laga takhalluso. red indianiska dadkii la odhan jiray maaye soo 100 milyan dad ah oo xadaaro leh oo jira ayaa la laayay. qaxoontigoodiina dowlad labaad baa timi tii leenaysay mooyaane markaasay isaga dhigtay inay qaxoontiga taageerayso bustayaal furuqle iyagana siisay. markaa badhna xabad baa lagu dilay badhna bustayaal furuqlaba ayaa loo siiyey kaalmadii la siinayay dadku uu ku noolaanayay. waxaasoo dhamme ma aqoon daraa jirtay maya, waa markii xadaaraadku ugu xooga badnaayeen. dowladda Mareykanka hadda joogtaa waqti yar bay leeyihiin 11 million people oo muslimka u badan bay dishay 5 madaxweyne oo isku xiga without reason. waxa caqligu uu qaata aanu ahayn. maxaa lagu leenayaa? aqoon baa leenaysay. hubka cirka maraya iyo kan la isku ridaya kan meeshu taagan yahay sheegaya waxaan oo dhamme waa aqoon. aqoontu hadday hidaayada weydo marka hadday hanuunka weydo aadamaha waxba ku soo kordhin mayso. waxoogaa yaryar baa laga yaabaa dadku inuu eego dawa fiicnaatay iyo kanbaa fiicnaaday, laakiin insaanku markaynu kuwa ka warramayno kama warramayno inta aqoon darrada u geysatay. waayo aqoonta baadhisteedu dawada marka laydin qoro soo dalmaada side effect bay leedahay. taariikhyahanadu waxay isku hayaan waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda iyama badan. cilmi baadhistan la sameeyey iyo waxa soo kordhay ee pollutionka iyo dunidii qarribay iyo noolihii baabi'iyay waxa ka baabi'iyay intuu waxina taray iyo intuu ina yeelay ka taagantay. sideedabana insaanka kibirkuun baa ka batay wuxuu ogyahay baa yar. walidaalika baa Albert Einstein waxa laga sheegaa wuxuu yidhi aniga agtayda buu yidhi 2 shay xuduud ma leh. labada shay oo leeyahay xuduud ma leh waa maxay? alkown wa ghabaa'u al-insaan buu yidhi. universe iyo bini aadamka qabinimadiisa ama jahligiisu xad ma leh. weliba ma huba buu yidhi kownku inaanu xad lahayn tan bini aadamkan iyada hubaa buu leeyahay inuu bini aadamku aqoon darradiisu aanay xad lahayn. laakiin
inta yara uu helay buu bini aadamku ku faanaya laba dhiboodba waa haysataa bini aadamku horta wuxuu ogyahay way yartay مثلا casrigan dambe waxyaabaha ugu tiro badan ee la yidhaahdo wuu horumaray maxaa ka mid ah مثلا medicine-ka ka mid ah socanka maaha waxyaabaha ugu badan ee hadda la leeyahay horumar weyn oo fiican baa laga sameeyey siiba dagaalkii labaad ee dunida intii ka dambeeyey siiba intii technology-ga ku saabsan inuu wax sawiri karaa uu soo batay يعني إن يرو تكنولوجيا لو قاعدة مثلا إن ديجا مركو أكسجين تسيدو أما يمركا كلا إن لك لا صوري كرو أو برتا يرى كوتشر تديجا إن قار لو صوري كرو تاسا وحي كينتي وحن ترى بدن له هذا اللوضع إسكان يا MRI يا وحن لشيء يودن إنه نختاركو حقان كرو يسقو أن قفك قالتان لقو سماينين باردتان ده إن وح بدن لقو حقان كرو لكن إنت اللي أوجي مع ذلك تضبيا لباتنكا إنستيوت مريكان ليه عافمات نينكي هيستردين كواها كراميدا إن وحنا يدهدان محي إن ما بين كمسكحدة بني آدم كغلطان هده قامسة كمدا أيا وحو تلمامي وحو بني آدم كما أنت وحو أوجي هاي وأنو مقعو بحني وأنو تلمامي كرناه ولك شرو شهدين أيوه أفر كونو حنون أفرتا كونو حنون انتادو مالين يسايل الدوين كرو وحنو الدوو هاي نابولي يلا بغل كونتون ودولة دي مريكانية تدوية لباتن كدي معهد علم عافمات كبار يا وحي لين أفر كونو حنون بانو قرنينا لكن لا بغل كونتون وحي لين 6% ولذلك بقى حلقوا تلمام متك لو باحثة مقعدك الله أنا مقعيسة بكرين أسأل كيس ملا هندي لكن كولومبيا يونيفرسيتي بكي ريسيرشر أيه وحيدي وحي بني آدم كواحد الله في ليا بودي مركا imagination لغو سمايو إلا هل مليون chemical reaction يصير كيس كده حدعان وحنو فرفرين كرنا بودو بني آدم كدو أنت لسيو وحلقة بدلي كراه وحي لم يتهيبو يدي أديكو هايستا تليفون هل مليون نود له يعني شركة تليفون هل مليون بهالقيبسي لكن لا أبغى كنت الله هذي كرتبوا لي نتك الله قرنا يحدن وما هو هل مليون هو تليفون بحدن لكن أنت عاد الله هذي كرتبوا لي ولا أبغى كنت ولا بدي بغى كنت كي هو الشيء سادراد بدو حيلين فرمسيga dawada taalo ilaa 700 waxooga chemical 200 kaasa lagu amaamiya laakiin inta kale wali dawa looma hayo maxaan tusaalayaasha u bixinaya ee dhalinyaradu waxay haysataa inta badan wax walba inay dunida ogaatay dunidu wax walba ma oga inta jaahilka ka badan waxay dhahdaan marka la eego dunida universe inta aynu garanayno kow asliyan 95% isaga kama warhayna bay dhahdaan waa dark matter-ka iyo dark energy-ga iyo waxaan ay sheegayaan inta inoo muuqataa bay leeyihiin waa 5% kana aqoonta bini aadamku 10% 10 ayaa habay leeyihiin inta ay in maanta la walaaqay wax laga ogiyo jaamacaadka iyo akademiyaadka iyo waxa dunida jiro dhamay isugu tageen waxaan iyadoo saasiya waana aqoontu marka horeba badnayn sida la moodayo hadda casrigan dambe waxa la soo saaray aad buu tiro badan yahay iyana waxay yiraahdaan dib kala haysato paperska cusub iyo informationka cusub la soo saaray bay leeyihiin 10 sanaba hadda waxay noqotay iyana waxaanu koobi karin mesela ninka dhakhtarka imika jaamacadda ka soo baxay informationku hayay leeyin intiisa ugu badan inaanay valid ahayn ba u badantay marka loo eego buxuusta cusub ee soo baxday that's why hadda leeyihiin hadday ku guuleystaan dawaabay bilaabeen in ay eega lagaga kalsooni badan yahay dhakhtarka nool waayo isaga ka xasuus fiican bay leeyihiin marka loo eego waxa insaanku aqligiisuna ma buura waxa uu og yahayna ma badna لكن
intaa uu og yahay bay ahayd inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u geyso markuu cilmigu hidaaye waaye hanuun waaye waxaa ka dhashay in uu noqdo dhakhtarku ka dadka baadhanaya dawa aanu u baahna inuu qor baadhis aanu u baahna inuu qor kanuu samee inuu noqdo ninka muxaamiga aqoon-yahanka ee qaanuunka ogi kaysuu og yahay inuu baatil iyo inuu difaaco waayo lacag baa kaga jirta isagoo qofkan inaanu xaq lahayn ayuu haddana difaacaya in mubarmijka maalan mobiladan iyo waxaan aynu haysanno kuwa soo brogram gareeyay inuu gurigiisana ka mamnuuco adigana kuu dhiibo kuwa brogram gareeya qaar ka mid ah la tilmaamaya guryahoodu inuu mamnuuc ka yihi kuwa fog maxaa kuu tilmaamaya instagramkana wada gashaan ninka lihi isagu mobil waayo wuxuu ku leeyahay waxtar ma laha laakiin adiga waxa lagugu brogram gareeyay haddaad gasho inaad addicted noqoto aanaad ka bixin saad farta saa ugu riixayso saacaddaadu dhammaato isagoo og inuu caafimaadkaaga waxyeelaya ama noloshaada waxyeelaya buu isagu lacag u galay dunidu maanta say u taallo waa profit minded sidaa awgeed maxaa lacagi ku jirtaabaa la isweydiinaya maxaa bini aadamka dani ugu jirtaa la isweydiin maayo aqoontu markay hidaayo weydo meel gaaban aad ka tusata kuwaasi malaa waa idinka fogyiine waagii aanu ardada ahayna xamar joognay ayaa maalin waa sheeko aan in badan ku celceliyo nin professor hindiya baa wuxuu dhigay saacaddan yare laydhka ee kilowatt hourka la yidhaahdo siday u shaqaysuu sharxay ragga kan waxaa loo tababarayaa dee inay ama injineerro ama macallimiin waxaan dhigta noqdaan wuxuu markaa sharxayaa sidee loo xadi karaa wuxuu sharxay 5 dariiqo oo ay suurtagal tahay in saacadda loo khiyaamayn karo dadkan maxaa loogu dhigayaa inay ilaaliyaan waan saacadahan iyo waxa kan dadku xadin ardadii loo dhigayay subaxii dambe markay suuqa tageen in badan oo ka mid nin waliba intii reere u garanayay buu maqluubka ugu soo xidhay marka muxuu taray ardayga cilmiga la barayay wuxuu taray inuu noqdo tuug xariifa accountant fiican baatay laakiin haddaanad hidaayo haysanin tuug xariifa un baatay waa tuug la baray farsamadii uu wax ku walaaqi lahaa cilmi tibbaad soo baratay haddaanad ilaahay ka cabsanayn tuug xariifa un baatay aqoontu waxay wax tartaa markaasi oo ay tahay waxaynu leenahay noloshay wax ku kordhinaysaa marka ay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhowayso dhan kale haddaynu ka eegno aqoontu waa 3 qaybood waxay u kala fadli badan tahay ama u kala fiican tahay waxa la baranayaa siduu u kala qiimo badan yahay maxaa ugu qiimo badan ee la bartaa maxaad u malaynaysaa waxa ugu qiimo badan ee la bartaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqa ku abuuray inaad barato iyo sifaadkiisa iyo maamulkiisa adduunyadan siduu u maamulo iyo adiga dacfigaaga inaad addoon tahay aad qirto inaad u sujuuddo aqoonta labaad bay yidhaahdaan waa wixii qofka bini aadamkaa ka warrama waayo insaanku bay leeyihin jamaadaadka wuu ka fiican yahay marka aqoonta labaad bay yidhaahdaan waa waxa insaan ku saabsan aqoonta saddexaad ee aqoomaha ugu dambaysa watan innagu aynu ugu ammaanta badannay chemistry iyo physics iyo biology waxaynu sheegno natural scienceska waxay yidhahdaan waayo waa material waa matter waxa la baranayaa waxay yidhahdaan aqoontu waxay u kala fiican tahay markaasi siday insaanka ilaahay ugu kala dhowayso innagase waxaad mooddaa in maskaxda laynaga qabsaday dabeetana aayad qur-aana haddaan akhriyo id idhaahda ilaahay baa sidaa yidhi wax wadaadadu sheegaan oo dee meelahan laga keenay oo dad aan aqoon-yahan ahayn ay sheegeen baa u haysataan haddaan se idin idhaahdo albert einstein wuxuu yidhi hadda albert einstein sida loo weysaysta ma aqoonin kaadiskagama meedhi jirin
laakiin haddaan idhaha albert einstein baa sidaa yidhi francis colonis baa sidaa yidhi waa dhagaha wada taagaysaan waayo aqoon-yahankii baa hadlay ilaahayna wuxuu ina leeyahay 4 aayadood oo qur-aanka ka mid ah wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun qur-aankaasi maadaama uu ilaahay kalaamkiisiiyo ilaahayna uu inoo sheegay yaclamu sira wa akhfaa wax walba inuu isagu og yahay inagu mulaaxadaadkeenna aqoonta bini aadamku xagay ka timaadaa waa mulaaxadaad waa waxa qofku uu arko waxay la korodhaa aragga waagii hore biologiga wax badan lagama aqoonin saa daraaddeed xanuunada dadka ku dhaca wadaadada kiristanku inay jiman iyo balaayo iyo dabayl dardarteed dadka loo ogaa markii ugu horreysay mikroskoobka yare bidaa'iga la helay ayaa la ogaaday wax yaroo kaloo noolo oo qofka intuu galo bakteeriya la yidhaahdo wax yeeli karaa inay tahay waxaa cirka meera iyo dayaxyadan iyo waxa socdo oo dhan wax badan lagama ogeyn waxay aqoonta bini aadamku wax garatay markii uu Galileo iyo intii la socotay teleskoobka yare bidaa'iga sameeyeen kuwoodii hadda waa lagu qoslayaa waxay ahaayeen haddii imka lagu tusiyo laakiin goormay aqoonta bini aadamku baratay waxay baratay ishiisu markay dheeraatay soo ma maqashaan Soomaalidu inay ku mahmaado bini aadamku way dhaku garaadle waa xaqiiqo jirta khalqiga waxaynu ku ognay waxaynu aragnay walidalik teleskoobkii yaraaye ninkan waa laga soo baxay dabeetana teleskoobba waaweyn oo dhulka la dhigo oo cirka iyo samada iyo waxa guuxaya wax maraya lagu eegaa la bartay waxa la yidhi intan soke si fiican wax uga arki mayno maxaynu samaynaa aan kor u qaadno meel sare geyno oo idinkan maqla satellite iyo waxba halka la geeyay waayo waxa la rabaa intan ay hawadu qasan tahay in laga baxo meel wax dheer laga arki karo kii laftiisii baa wax badan arki kari waayey waxay yidhahdeen waxaynu u baahanay musbaar aanaynu ugu soo noqon inaynu diro baal yaroo kolba sawir soo diroo la yidhaahdo intaasoo light yar buu sii jaray wuu sii socdaa soona noqon maayo laakiin inta uunaynu ishaaraad ka heli karno maxaa la raadinayaa markaa aragga in la dheereeyo xaggan kalena araggunbaa loo dheereeyey مثلا waxyaabahan hadda wax lagu eego waxa yare daqiiqa lagu arko Ahmed Zuwayl wixii uu soo saaray baa ugu khatarsan 1 divided by 10 to power of 15 of a second wax dhici kara reaction ka dhici kara buu sawiri karaa yani 15 zero hal 15 zero la dhinac dhigay oo second loo qaybiyay waxa dhici kara sawiri karaa أحمد زويل وحو إنو كرديي إيش إنه إنه هوس وديراتو وح ير أركي كرتو أقولت مركا محيتي خلقي إلهي أبو ري أنت إنه كأركي كرنا وما أقولت إنه لاكتي دكتنا إنه ديرينه ويبل ميلفق وحكا مقلي كرتو وردونك عيدي ما ينقول لنا شيء بل وحا إشارات يسيقنا لسكي مدان دقي سنو وحي physics ده chemistry ده biology ده biology goorma horumaray marka bini aadamka gudihiisa aynu arki karno inoo aan qalin maskaxda qaybta shaqeynaysa qaybtan shaqeynaynin qaybta waa in la sawiri karo soo duuduubo hadaba intaynu arki karnaa adduunka way yartay aad bay u yartay laakiin intii bay kibir laga qaaday intii baa ilaahay garab marisay intii baa waxay keensatay inuu bini aadamku isagu isku adoonsado isku dilo isku laayo isku gumaysto isku boobo isku dhaco bay keensatay haddii bini aadamkaasi ilaahay rumaysnaan lahaayeen ama ay noqon lahaayeen kuwa ilaahay ka cabsanaya aqoontu bini aadamka waxbay ku tari lahayd markaa walidaalika ayuha alaxiba waxbaa baranaysaan laakiin hadduu alla ka cabsigu raaci waayo waxtar ma leh adna waad lu go'day sanadaha iska khasaaraynin dadkana waad lu goysay kuwii lacagta kaa bixiyey iyo kuwaad hadhow intaad waraaq ula timaado odhan doonto shahaadaad baanu sidanaa waa wada lugooyo waxay waxtar tahay markaad ilaahay taqaano markaasaad khalqigiisana wax tari kartaa marka aniga kelmadaydu ma buura waaba laga yaabaa wixii aan soo qorayna inaan waayey
noobelka ay dhex gashay laakiin soo duuduubo waxa aan warkaydu ku soo koobayaa wuxuu yahay inaad waxaad arkayso ka buunbuuniso ilaahay sameeyey wuxuu kaaga sheegay insaanka oo dhamme wuxuu aqoon haystaa waa dhaata la ururiyey xog intaad ururisay data waa af norwij mala idinku data tidhahdaan wasal halkii uune in xog la ururiyey dabeetana hadhow la analyse gareeyo kadibna la tafsiiro kadibna macno loo yeelo qaacide iyo wax lagu sheego marka inaad adigu xogtii aad ururisay kaala buuranto xogtii ilaahay kuu sheegay subxaana wa tacaala ilaahay kownkaba abuuray wuxuu isagu kaaga sheegay inaad garab marto kelmadaydu waxay tahay markaa imaamu shaafici baa waxaa laga sheegaa marna imaamu shacbi baa loo nisbeeyaaye cilmigu waa 3 taako oo taakada koowaad kibir baa laga qaadaa qofku inuu wax badan garanayaa buu ismoodaa dhalinyaradu had iyo goor markay shahaadaadka koowaad ama labaad ama saddexaadba soo qaataan inuu cirka iyo dhulka kala hayaa buu ismoodaa taakada labaadna waxaa la ogaadaa bay yidhaahdaan inaad waxba badan garanaynin marka waxaan ku soo koobayaa war waxaynu haysanaana ma badna bini aadam oo dhan markaynu isku darro waxaynu ognay ma badna intaynu ognayna maanta kibir baa laga qaaday haddii aqoontaasi ilaahay idinku aa u celisaan rabbu samaawaati waalardina idinna waa idin anfici dadka idinka dambeeyana waa anfici aakhiradiinana waxbay tari haddaase noqotaan aqoonyahan aan weysada aqoonin ilaahay sida loogu sujuudo aan aqoonin adna hoogti kuwii ku soo dirayna waa kugu khasaareen marka ilaahay inaynu baranno aan ka horraysiino tan kale janniya naar inaynu ka fakarno aan ka horraysiino waxoogaaga lacagtee la shaqaysanayo waayo tan waad ka tegaysaa lacag kastoo aad leedahay maadiyadku wax anfacaya adduunka intaad u fakarayso ha ka badato intaad aakhiradaada u fakarayso adduunka waxaa laga yaabaa iminka inaad 20 sannadood wax soo dhiganayseen malcaamad dugsi dhexe dugsi hoose dugsi sare jaamacad 20 sannadood waxaad invest garaysan midaa baraka u barataan maa jira waa hadday hanuun weydo waa dalaal aan xuduud lahayn hadday se hanuun hesho waa nafci adduunyo iyo mid aakhiraba sala allahu calaa nabiyina moxamed